والسلام على رسول الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أدير وما سنتهاي أرتو وها كاني جبوين كي معمولة وها ماشي لقى شيء runtii si looga hadlo hadda caawa uma yaaliin wax iska been abuur oo been sharci loo raadinaa weeye waxaan aaminsanahay 20 dhowrkii sano Kismaayo kolba kooxa qabsanaysay intay is abaabusho kooxdii ugu liidato intay is abaabushay meeshaas wax dhalanteeda oo aan soconayno oo maaragtay muxuu ahaa laba ogaad doono warbaahinta saadaal media inay ka sameeyaan isku dayay annaga kolba noogu muuqataa sidaasayna ay ku sifaysan tahay maxaa yeelay waxa meeshaas la isugu tagay waxa weeye wax Soomaaliyeed maaha waddankaanu dawladdu leeyahay goboladana nidaam dawladdu ay go'aansatay oo siyaasadda dawladdu ay go'aamisay ku socda marka haddaysan wuxuu ku fadhin tala degaan oo aysan balance Soomaaliyeed ku saxnayn oo dastuurkii iyo policy dawladdii waddanka ka dhalato hadda aan ku meelgaar ka gudubtay oo dawlad rasmi ah aysan la haysan marka waa nidaam oo fawda ah oo haddana aad moodo inuu dhadhan xu yahay oo runtii loo tafsiiri karo wax isticmaar u eg dad gobollo ka yimiday oo gobollo kale laga soo daabulay iyo qaar ka yimid dawladaha kale deriska oo waddanka baan xuquuq ku lahayn oo meesha isugu yimid kulli diyaaradaha iyo maraakiib lagu keenay oo ay ku yariyeen wax deegaanka ah ayaa meesha isugu tagay marka wax dhul boob ah oo maaragtay aad moodo dhibaatadii muddada dheer hadda ku soo socotay oo suuragal ay ahayd maanta in laga gudbo ay dib u soo celinaysa marka anaga wax meeshaas wax ummadda Soomaaliyeed wuxuu tarayana ka soo bixi maayaan bal waxa laga yaabaa dhibaato inay dib u celiyaan waana la ogaan doonaa oo waxay ku dambayso waa la ogaan doonaa marka waxa weeye midda kale mas'uuliyadaas waxa iska leh ciidamada Kenya iyo dawladda Kenya iska leh waxaad ogaan doontaa markii taangiyada Kenya meesha ay ka tagaan waana ka tagayaan waa la hubaa taangiyada Kenya markay meesha ka tagaan dadka meeshaas wax ku sameynaya hal qof kama joogi karo kaligiis marka dad noocaas oo taangigaas Kenya oo ayaguna magaalada hadda Kismaayo gudaheeda kaliya joogo oo daafaha magaalada jirin oon awood u lahayn in magaalada meel kamid u baxaan nimanka halka inta maaragtay baantaas iyo quraafaadkaas naftooda ku aqrinayo ummadii maaragtay muxuu ahaa been abuurkaas ka sameynaya kolba anigu waxaan isleeyahay fikir Soomaaliyeedna ma ahan tala Soomaaliyeedna ma ahan waa niman dad kontrabandiira oo isticmaar u shaqeynaya oo waddanka raba inay dhibaatadii aan ka bogsoo rabnay dib u celiyaan go'aankoodu yahay waxay ka shaqeynayaan waxa weeye bal hadda waxa laga yaabaa inay maaragtay joogi lahaayeen Kismaayo ayagoo muwaadiniin Soomaaliyeed inay muwaadiniin Soomaaliyeed ayagoo joogi waayeen ka shaqeynayaan oo dhow loo ogolaad diido markii taangigan Kenya waa tagaya inuu tagaya lahuba marka uu tagana hal qof kama joogi karo markii hadda waxay ku yimideen ayagay la socdeen asay la socdeen qaylada meesha deganay waa ku yaryihiin halkani waa warbaahinta waxaan ognahay dadkii ugu ulsay in la xaqiray oo laga tigay oo isma ku jireen oo ciidan oo jabhad meelahaas laga soo abaabulay dadkaas NFD oo Kenya ay maaragtay hayso ciidamo laga qoray oo berigi la qorayo anagu waan ogeyn oo Soomaalidu inteeda xognay ogtahay ciidamadaas meesha lagu soo ururiyay magaca la siiyay waa la yaqaan waa jabhad marka ummadda Soomaaliyeed maanta jabhad ma xiisaynayso dhibaatada ay ku reebtana dadka waa ku yaaleen boogaheedii marka anagu waxa noocaas ah waxay soo celinaysaa dhibaatada Soomaaliya ay maaragtay suurtagalaheeda inay ka sii baxaysay dib u celinaysaa ayaguna waxa la hubaa inaysan samay karin maamul cadihiisa isku taaga sharciyadna uma haystaan deegaan awoodiisna kuma sameeynayaan waa la ogyahay Kismaayo waa la yaqaanaa midda kale waxaad moodaa
runta waxay imaanaysaa markii ciidamada Kenya meesha ka tagaan waxa hadda meesha ay ku aqreen waa been laakiin ciidanka Kenya markuu meesha ka baxaa runta imaanaysaa markaas aan ka taagnaado dadka meesha hadda doobanaha sii joogaan intaas ay warkeena oo ku koobayaan ra'iisul wasaare waa mas'uulka hadda Soomaaliya oo saddexaad runtii boolisiga goboladana asigay hoos tagaan wuxuuna xaq u leeyahay gobolada iyo shacabka Soomaaliyeed inuu maaragtay cadaalad u qaybiyo intaasoo gobol uu tagay barasaabyo u magacaabay istiraatiijiga dawladuna waxay ahayd si ku meel gaar ah in maamul goboleed aan inta loo gudbin in gobolada gobol loo dhiso si loo ogaado marka hore nabadana loo xaqiijiyo gobolada laftooda aan loogu dhibtoon xuduudahooda iyo dadka wax ka noqonaya inay degaan yihiin in la xaqiijiyo tuulo laga soo dhiso degmo ilaa gobol saas marka gobolkaas u dhismo in hadhow mustaqbalka dhow inay u baxshaan guddi markaas qoboraa oo gobolada say isu qaadan karaan isu waafajiya istiraatiijiyada dawladda waxay ahayd mid cad oo qeexan maxaa yeelay hadda waxa ay sameynayaan dawladda wixii laba laha hadduu marka maamul goboleed yahay soo laba baahna dawladdu inay maaragtay tusuurka ay sameynayaan mid dawladda iyo midka u yaala qaranka oo tusuurka Soomaaliya ah iyo midka ayagu hadda ay sameynayaan xagee isaga xirmayaan waa wax su'aal meesha ku jirta way maxaa dawladda xiriir lama laha marka waxaad moodo inay dadka lagu khaldaa laakiin aan wax Soomaaliyeed ahayn oo dana shisheeye lagu fulinayo waay iyo dad muqallasiin oo maaragtay muxuu ahaa contrabandiera oo ka soo horjeeda qarannimada iyo Soomaalinimada oo la og yahay xataa oo kulligood dawladahaas dariska wada muqallasiin u ah oo wax Soomaaliya ay ku yar yihiin korsanyeeriga iyo warka iyo maaragtay waa laga yaabaa inay Soomaaliya u abtirsadaan laakiin xaqiiqada waxay hadda ka shaqeynayaan wax Soomaaliyeed maaha Soomaaliduna way ogtahay meel walba meel ay joogto waa garanaysaa waxaan aaminsanahay inaysan ku sii waari karin waxay dhoobayaan meesha waxayna ku agtahay ciidamada Kenya intay meesha ka baxayaan waana ka baxayaan Kenyana waa cadow ummadda Soomaaliyeed loo soo diray markaan ogaana wixii ka dambeeyana culays naguma hay doonto kuwa ayaga ka waaweyn ka xoog badanaan iska fujinay ayadana hadii Ilaahay ku wadmaayo ummadda Soomaaliyeed saan u garanay u garatay waana la dagaalamaya insha Allah ciidanka Kenya hadda